بسم الله isku soo noqod wanaagsan haddii videogan aad ka bilowday videoga ka horeeyay ee dhowrka daqiiqo soconaya soo daabo si aad u ogaato waxa meeshan lagu haya ama looga hadli doono insha allahu tacaala haddii aad soo daabatay aad baa u mahadsan tahay videoga labaad ayaa noo bilaaban doona oo ka hadli doona shaqada tan habka loo qaban lahaa ugu horeyn kambaniga martida u tahay maanta waa kambani loo yaqaano magaciisa layna la yiraahdo TNS muxuu ku shaqeeyaa nidaamka tooska ama wax loo yaqaano network marketing ayuu ku shaqeeyaa wuxuuna ku hayaa wax loo yaqaano ama ah fursad faa'iido wadaag profit sharing opportunity faa'iido wadaag halkan qofku wuxuu ka yahay share wuxuu shaqaysta ayuu wax ku leeyahay qofku markii la dhahana marka waxaa shaqaysataa wax ku leedahay way ka macno weyna ka faa'iido badan tahay in la dhaho intaasaa qaadanaysa wax allaala waxaa qabato way ka macluumaad weyn ka faa'iido badan tahay waxaynu istarki doonaa su'aal buu ka barigan weydiinaya su'aashaas oo ah what are the top problems of life maxay tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn dadka dunida maanta haysta maxay tahay isweydii dhibaatada ugu waaweyn dunida maanta dadka haysta maxay tahay waxa ugu waaweyn uu kamid ku soo koobay unemployment shaqo la'aan dadku waxay ka cabanayaan shaqo la'aan waxbay soo barteen waqti bay geliyeen noloshooda maca daalika shaqo la'aan baa jirta haddaba shaqada halkee bay aadee shaqadu marwalba technologyga sare u kaco shaqooyin badan baa khad ka baxaya waxaa jireen shaqooyin badan ayaynu garanayna laakiin maanta aysan jirin tusaale ahaan oo kale dekedaha waaweyn dunida awal kor waxaa ka shaqayn jira dad caadi baa ka shaqayn jiray ee garararata ahaa ee xoogsata ahaa hadeertan wiishashun baa ka shaqeeya meeshay ka shaqayn jirta 2,000 oo qof waxaaba ku filan ba 4 qofood baa ku filan tusaale ahaan kale dee tusaale kala soo qaadano mashiinka la yirahdo ATM mashiin la yiraahdo ee lagula baxa kaararka bangiyada oo qofka lacagtu ku jirto kaarkiisa kula bixi karo ATM mashiinkaas wuxuu bedelay baa la dhahaa 20 qofood oo cashier noqon lahayd oo kambaniga u shaqayn lahayd ee dhaqaale joogta ah iyo mushaar joogta ah ka qaadan lahaa maxaa kaga filan hal ATM mashiin ay soo gataan marka marwalba technologyga casri noqdo shaqooyin badan baa khad ka baxa su-aasha labaad ama qodobka labaad ee keena ama problemka dunida ka mid ah waxaa ku farta faqri qofka shaqalaan hadee dhacdo dee burbur dhaqaale iyo dhibaato dhaqaale way dhacaysaa qodobka ugu dambeeyana xanuuno ayay dadku ka cabanayaanoo dadku intooda badan waxay ka cabanayaan xanuuno krooniga ama xanuunada raaga ah iyo xanuuno caadi iskala socdaanba haddaba kambaniga kan intan baxal buu u hayaa maanta waxaa jaanis waysataa fursad aad ugu abuuri karto adiga bulshadaada inay shaqo ay helaan number 1 iyo inay xanuuno badan oo halis ay ka dawoobaan ilaa baa dawada hayee laakiin xanuuno badan ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ka dawoobeen inay ka dawoobaan insha Allah tacaala su'aal kale ku weydiinaya kambanigu wuxuu ku leeyahay what is your dream lifestyle maxay tahay hamiga noloshaada maxay tahay halkee baad doonaysaa noloshaada inaad tagto 3 sano hadda kadib meel shaqo qof uu ka doonanayo weligii la weydiiyey ma jirto nolosha maxaa jeceshahay hamiga waxaasla ma jirto waxaa la dhahay qofku leeyahay noo qabo keliya nolosha noocaasa ayaynu doonayna bulshadana ka saar nolol xorriyad baynu doonayna inaynu bulshada gelin insha allahu tacaala haddii aad diyaar u tahana waad ku guulaysan doontaa insha allah halka waxaa lagu weydiinayaa maxay tahay hamiga nololeed aad leedahay waxaad doonaysaa adii familkaaga dunida inaad dalxiis tagtaan waxaad doonaysaa abaalmarinada kambaniga laga guulaysto gawaarida dalxiiska laga guulaystana kaga guulaysato waxaad doonaysaa xajka inaad aado waxaad doonaysaa masaakiinta inaad caawiso waxaad doonaysaa guriga leedahay adow inaad iibsato haddii jawaabtaada waxa ay tahay kambaniga uu kuu suuragelinayaa haddii dadaalkeeda aad la timaado waad heli doontaa insha allahu tacaala anigana waxaa diyaar kula ahay habka aad ku gaari lahayd adbaaleyno waayahay waxaynu isla arki doonaa insha allahu tacaala qodobkeena xiga kambaniga kan waa xarunta ugu weyn ee kambaniga waxay ku taallaa dalka China ayay ku taallaa waxay xarumo weyn ku leedahay in ka badan 110 wadan bay xarumo weyn dunida ku leedahay sidoo kale waxay ku leedahay xarumo yaryar in ka badan 190 wadan waxaa consumer group ama customer ah in ka badan 40 milyan sidoo kale kaalinta 11 ay ku jirtaa shirkadda iibka tooska laakiin xaaliyan waxay ku jirtaa kaalinta 3aad bay ku jirtaa sidoo kale waxay haddii qofkii faahfaahin dheeri doonaya xada dunida beelus kuma sheegi karo qofkii faahfaahin dheeriya doonaya dee website-kan buu kala xiriiri karaa sidoo kale hadduu ku qoro
google-ka ku qoro tens wax badan xog ayuu helayaa sanadkii iib gaaraya 1.5 bilyan iyo kambaniga ka sameeya waayahay xogtan 2019 ayay ahayd haddeertaan kaalinta saddexaad ayuu ku jiraa customer groupkana aad buu badan yahay waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay tahay kambaniga waxa ka qabanayo ama aan kula noqonayo sheerka maxay tahay ugu horeyn waxaynu isweydiinaynaa maxay u baahan tahay inaan qabano ganacsi maxay nooga baahan yahay tusaale ahaan waxaa laga yaabaa carwo aan rabnaa inaan furno carwo inaad furto maxay kaaga baahan tahay ugu horeyn alaabta inaad heysay kaaga baahan tahay maxay kaloo kaaga baahan tahay meesha ku iibin lahayd dukaankii oo meel fiyaalaha oo suuqa ku yaala inaan furno waxay kaloo kaaga baahan tahay in mid walba qiimaheedii pricekeedii inaan jaangooso saddexda markaad hesho waa inaad heshaa dad kaa iibsadana waa inaad heshaa haddii aadan intaan 4 shay aysan dhicin wax lacag aynu sameynayno ma jirto haddaba kambanigu wuxuu ina leeyahay 4 shay 3 shay aniga ayaa kaa kafaala qaaday adigu hal mid bas sheer igula noqo alaabta liibin lahaa aniga ahaya alaab high quality ah xanuuno badan oo halis looga caafimaado sidaan sheegnay sidoo kale videos badan aynu hayno sokor dhiigkar baabasiir macaan xanuuno badan aad iyo aad bulshada u dhibaateynaya in xalkooda la gaaro insha allahu tacaala maxaa yeelay waxaan daaweyn dunida ma jiro sidoo kalena meeshii lagu iibin lahaana kambaniga isaga ayaa diyaariyay oo xarumo weynayo gobolada soomaaliya dalka wada furan qofkii meel aysan xarunta ku olin joogana si waa loo deliver garayaa waa loo dhiibaa si markaa meeshuu doono marka uu qofkii soo dalbadana waa inuu deliver garaa si ugu gudbiyo isagana sidoo kale pricekii qiimihii waxaan jaangooye kambaniga jaangooye oo qiimaha walba kambaniga ayaa saaray adigu waxaa lagaa doonaya keliya bulshadaada inaad la wadaagto kii caafimaadka doonaya isdaweeyo kii dhaqaalaha doonaya inuu shaqaysto kadibna markuu intaa shaqada noocaas loo igmo qofku markuu qabto in kambanigu ku siiyo maxay commission inuu ku siiyo amaba lacag loo yaqaano commission amaba wuxuu ku shaqeynaya qofka percentage-kii uu lahaa buu ku shaqeynaya percentage-ka muxuu yahay waynu soo arki doonaa insha allah waaya haddii aad tiraahdo waxa kan waa waxaan qaban karo inaan bulshada u soo bandhigo caafimaadkooda iyo dhaqaale inay sameeyo waxaan awoodo see baan ku bilaabi karaa see baan kaga mid noqon karaa xibin waxaa ugu hore lagaa doonaya haddii aad doonayso xibin inaad ka noqoto number 1 inaad isdiiwaangeliso isdiiwaangelintu maxay tahay isdiiwaangelintu meel bay ka jirtaa jaamacaday ka jirtaa iskuuladay ka jirtaa inay baris dunida maanta jiro isdiiwaangeli ma jirto xataa dugsiyada qur-aanka ayay isdiiwaangelintu ka jirtaa fariisin baa loo yaqaana waayahay haddaan isdiiwaangeliyo maxaan helayaa 2 shay muhiim baan helayaa ugu hore waxaan helayaa free office xafiiskii free ah meel haddii aan joogo xarunta meel ay ku taalo xafiiska free ku yahay xafiis dunida lagu furso doolare ma jirto number 2 waxaan helayaa free training tababar free ah oo tababaradaas qofku qaadanaya waa tababar IQ-giisa aqliyadiisa bedelaya xaqiiqatan tababarada lagu qaato xataa jaamacadaha way ka duwan yihiin sababta ay tahay jaamacadaha qofku waxaa loo training garayaa sida uu ku noqon lahaa shaqaale wanaagsan halka kalena waxaa lagu training garanayaa sidaa ku noqon lahayd hal abuuro wanaagsan wayna kala duwan tahay qof loo training garanayo suu ku noqon lahaa shaqaale wanaagsan iyo qof loo training garanayo suu ku noqon lahaa hal abuuro wanaagsan qodobka labaad waxaa lagaa doonayaa ID ama xirmo kamid ah kambaniga inay dhisto oo ID baa kambaniga laga iibsadaa ID-gan waxaa lagu iibsadaa xirmo kamid ah xirmooyinka kambaniga inaynu sameyno ama iibsano waayo xirmooyinka unu soo arki doonaa insha allah kadibna aan la wadaago dadkii ugu xeendaaban asxaabteyda ehelkaygana la wadaago aan kula wadaago physical weji amaba aan kula wadaago asxaabta kale online aan kula wadaago sida adiga aan kula wadaagayo kale qodobka afraadna waxaa weeye in aan tababaro dadkii aan la wadaagay inaan tababaro aan siiyo maadaama ay ugu soo biireen ee doonayaan noloshooda wax badan inay ka bedelaan inay qaataan tababaro si iyagana ay u noqon lahayd dad madax bannaan horan ugu socda وايه waxaan isla arki doonaa insha Allah taala xirmooyinka bariga laga iibsado xirmada kood waxa loo yaqaan bronze waxa lagu iibsadaa $110 alaab joogta iibso dan xirmadaas ayaa galaysaa oo micneedu maaha $110 hadaan bixi maaha oo cash bixi ID card ba qaadanaysaa ma $110 alaab ku iibso darajadan kambaniga ayaa ku siinaya ama bronze ayaa taa kambaniga ku leeyahay bronze hadii aan maxaa faa'iideeyaa waxaan faa'iideeyaa kambaniga percentage waxaan ku yeelanayaa 10%
oo $100 kasta aan iibiyo $10 ayaan ku leeyahay waynu ognahay carwooyinka meelaha mobilada lagu tusaalahan kale waxaa faa'iido laga raadiyaa $2 $1 0.5 wax la mid ah laakiin halkan $100 ayaa ku yeelanaysaa dukaanka ugu bronze haddii 9 waxaa ku yeelanaysaa tiimkaaga iyo dadka kaa farcamane 9 ayuu kamid kaa sinaya sababta inta kamid wuxuu ku leeyahay madaxaaga ayay noogu yimaadeen adigu maadaama aad keentay adigu 9 baan kaa sinaya silver dukaanka uu yahay $220 alaab joogta iibso kaarka silver ayuu noqonayaa kamid percentage imisa ku yeelanaysaa 15% oo $100 kasta oo aad iibiso $15 ayaa leedahay 10% waxaa ku leedahay tiimkaaga farciisa waaya gold kaarkayga haduu yahay isaguna maxaa faa'iidaya isaguna waxaa faa'iidaya $440 ayaa lagu galayaa kaarka goldiga ah waxaana faa'iido kamidgiisina 18% halka tiimkayga farciisa 11% uga siinay isagoo aan qiimihiisa wax laga qaad isagana wixiisa uu leeyahay kambaniga ayaa ku siinay kambaniga ku leedahay noqonaya marka haduu kaarkay gold uu yahay weekly isbuuci imis ayaan awoodaa inaan qaato ilaa $400 ayaan awoodaa inaan qaato kaarkay silver haduu yahay imis ayaan awoodaa inaan qaato ilaa $300 hadaba $300 dadaan qaadan way jiraan dad qaato way jiraan hadba waxay ku xiran tahay dadaalkaaga iyo shaqada aad qabatay ay ku xiran tahay waxaan soo arkaa insha Allah ta'ala tusaale yar hadii aan kaarkayga uu silver u yahay aan la wadaago laba qof oo saaxiibaday aan la wadaago iyaguna kaarkooda uu noqdo silver kambaniga maxaa ku leeyahay oo uu kambanigu iga siinaya ayaan insha Allah ta'ala isla arki doonaa kaarkayga silver haduu yahay anigu kaarkayga waa silver 220 laba qof aan la wadaaga asxaabteeda iyaga 220 kaarka bay iibsadeen kambaniga $6 ayuu siinaya mar walba dadkayga bataan waxa badan doona lacagteeda mar walba lacagteeda badatana waxay isbedeli doonaa darajada kambaniga aan ka galiyay isbedeli doona insha Allah waxaa sidoo kale saaka doona kaarka gold haduu yahay ka waran isagana kaarka gold haduu yahay halka qof adigu gold kaarka haduu yahay laba qof oo gold iyadana aad keento kambaniga la wadaagto iyagana daawooyinka ay ku qancanay iibsadaan ay ku ducayaan markay caafimaad ay helaan maxay yeelay kambaniga waxaan idhi xanuunaha halis ay loogu caafimaad waana caafimaadkii bulshadana ka shaqeey oo ducayigana ka kambaniga ha ku siiyo abaalmarin ha ku siiyo way oo commissionkaagana ka laba qof oo goldiyo aad keento min 440 kambaniga iibsaday $180 ayuu ku siinaya commission kambaniga isbuuc la ayana lacagta kambaniga loo qaataa isbuuc walba ee aad shaqaysato lacagtaada ku soo dhacaysa oo bilbil lagu sugayo marba dadka ugu bato waxa badanaya lacagta qaadanayso star levelka ama kambaniga levelka ka galaysa inuu isbedelaya waxaan soo arkaa kambaniga levelada laga galo ay kambaniga soo arkaa doona qofka markuu isdiiwaan geliyo waa 1 star bronze ama xirmada 110 haduu iibsado waa 3 star xirmadan haduu iibsado 220 waa 4 star 5 star qofku wuxuu ku noqonayaa isagii wixii ka farcamay inay 200 iibina sameeyaan ay ku noqonayaa marka 7 star qofka duu gaaro 25 iiba isagii wixii ka farcamo dhan 25 ma badna waxa weeye 25 waxay noqonaysaa haduu saalahan kale hadii ay ka farcato 50 qofood qofku u iibay $100 waxa weeye $500 weeye bisha kale shaqo waa automatically 7 star gali kara way erisa waxa uu noqdaa aniga tiimkayga $100 inaan iibino ma badna hadii tiim aan haysan saalahan kale waxa iga farxma 100 qofood $100 bay iibiyeen bil walba $10 bil walba iibinayna way hadaan darajada noocan soo gaar kambaniga wuxuu siinayaa marka waxa soo baxo dalxiisyo uu kambaniga soo saaro qofka darajada uu gaaro galayo soo ka erista qofka uu gaaro qofka wuxuu ku guuleysan abaalmarin $10,000 ilaa $15,000 soo baxday ay jirtaa sidoo kale wuxuu aqoonsanay kambaniga waxa loo yaqaan African share ay kambaniga ayaa ugu leeyahay maadaama darajada tan aad soo gaartay halkan way ka sii daran tahay oo dadka bronze silver iyo goldiga waxay ku xisaabtamaan $15,000 ilaa $20,000 ay kambaniga kaga xisaabtamaan meesha oo carabna waa halka kan uu kambaniga aan ka helayo commissionkayga uu isi dheeryahay lacag joogta ah oo kambaniga ka qaadanayo way lacagta joogtada waxa u dhaxaysaa 5,000 ilaa wixii ka badan way sii noqonaysaa way hadii aad yar u tahay in noloshaada bedesho ku soo dhaweynayna insha Allah ta'ala soo dhawo gacan fur ku soo dhawo isdiiwaan gelintu $100 kaliya ayuu qofku bixinaya oo halkaas marbis uu bixinaya tababarada ayuu qaadanaya noloshiisa ayuu wax badan ka bedeli doonaa insha Allah ta'ala anagana diyaar waxaan kula nahay noloshaada habka aad ku bedeli lahayd insha Allah ta'ala dad badan noloshooda bedelanay waa ay jiraan waxaan kula wadaagi doonaa insha Allah ta'ala asxaab badan oo waxaa jira noloshooda bedela dalxiis ku guuleysa Afrika iyo dunida idil
walba gaara hadda jeena ay dadkan joogaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.